boqoradii hore ka mid ah ayaa wuxuu qabay 4 xaas. Wuxuu aad u jeclaa midda afaraad, jacayl waali ah. Wax walba oo ay ka dalbatana waa u samayn jiray si uu u raaligeliyo. Midda saddexaadna wuu jeclaa, balse wuxuu dareemi jiray in maalin uun ay qof kale ka raaci doonto. Xaaska labaadna waxay ahayd mid marka uu dhib ku dhaco u soo ordi jiray, iyo wakhtiga ay daruufta jirto wuuna la tashan jiray. Iyadana way dareemi jirtay oo way la qaybsan jirtay dhibkiisa. Waxaa ku soo hartay xaaskiisii koowaad. Xaqeeda ma uusan sii jirin, iyadana way jeclayd jacayl xad dhaaf ah, waxayna u ilaalin jirtay hantidiisa, ilmihiisa, xaqiisana way dhowri jirtay. Muddo kadib waxaa xanuunsaday boqorkii, wuxuuna dareemay inay soo dhowaatay geeridiisa. Wuxuu ku fikiray, waxaan leeyahay 4 xaas, mana jecli inaan qabriga keligay galo. Xaaskii afaraad ayuu u yeeray wuxuuna weydiiyey, aniga waan ku jeclahay, xaasaskayga kale adiga ayaan kaa jeclahay. Wax walbo aad rabtidna waan kuu samayn jiray. Raalli ma ka tahay inaad qabriga igu wehelisid? Waxay tidhi, waa wax aan caqligal ahayn, wayna ka carartay isla markii iyadoo weliba ka xanaaqsan. Xaaskiisii saddexaad ayaa imaatay, wuxuuna ku dhahay, waan ku jeclaa intaan isqabnay, waxaana kaa codsanayaa inaad ii raacdid qabriga. Waxay ku tidhi, nolosha way macaan tahay, haddaad dhimatid nin kale ayaan iska guursanayaa. Waxaa timid markan xaaskiisii labaad, wuxuuna ku yidhi, mar walba adiga ayaan kuu soo ordi jiray marka ay dhibaato i haysato. Maanta waxaan kaa codsanayaa inaad qabriga igu wehelisid. Waxay ugu jawaabtay, aad ayaan uga xumahay, ma awoodi inaan dalabkaaga kuu yeelo, balse waxaan kuu awoodaa inaan qabriga ku gaarsiiyo oo keliya. Boqorkii aad ayuu u murugooday. In yar kadibna wuxuu maqlay cod ka imaaday meel dheer oona leh, aniga ayaa kuu raacaya qabrigaaga iyo meel walbo aad tegtid. Boqorkii wuu fiiriyey qofka uu codkaa ka soo yeeray. Waxayba noqotay xaaskiisii koowaad, iyada oo daciif ah, oo jiran, tacbaanna ah, sababtoo ah ma uusan daryeeli jirin. Boqorkii aad ayuu uga shalayay, wuxuuna yidhi, waxaa loo baahnaa mar hore inaan adiga ku dhowro, xaqaaga ilaaliyo. Haddii wakhti la i siin lahaa, waxaan aad u jeclaan lahaa adiga, waana ku daryeeli lahaa. Xaqiiqdii qof walba oo naga mida wuxuu leeyahay 4taas xaas oo kale. Ha degdegin, aan kuu kala sharaxo 4taas waxa ay kala yihiin. Afaraad waa jirkaaga. Si walbo aad jirkaaga u daryeeshid ama aad u raacdid shahwadaada, goorta aad dhimatid jirkaagu wuu baaba'ayaa ama wuu kaa tegayaa isla markiiba. Saddexaad waa hantidaada. Marka aad geeriyootid, hantidaadu way kaa tegaysaa ama waxaa yeelanaya dad kale. Labaad waa ehelkaaga iyo saaxiibadaada. Wax walbo ay kuu sameeyaan, kama filaysid ilaa inay ku gaarsiiyaan qabrigaaga mooye. Koowaad waa camalkaaga iyo iimaankaaga wanaagsan. Waxa wax kuu tari kara waa camalkaaga. Ka waran haddii maanta camalkaaga lagu tuso uuna yahay mid daciif ah oo aan wax badan kuu tari karin geeridaada kadib. Haddaba walaalkay iyo walaashayow, maanta inta aad nooshahay jaanis ayaad haysataa. Camalkaaga wanaaji oo aakhiradaada u shaqayso. Sheekadan wacyigelinta ah, walaalaha aad wanaagga la jeceshahay gaarsii. Waxaa laga yaabaa inay wax ku qaataane inoo sheer gareeya.